ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja iyo sidoo kale ururka dhaqaatiirta ee Somaliland oo maanta si wada jir ugu hadlay xarunta ururka suxufiyiinta ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa waxay si wada jir baaq ugu dareen suxufiyiinta ka howlgala deegaanada Somaliland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada inay si wada jir u qaataan fariimaha uga imanaya wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ee ku aadan cudurka coronavirus iyagoo suxufiyiinta si gaar ah ugu baaqay inay qayb laxad ka qaataan wacyigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ku kulmay mas'uuliyiinta ururka iyo ururka dhaqaatiirta jamhuuriyadda Somaliland oo runtii laba urur oo bulshada ugu jira kaalin mug leh marka ay noqoto xagga wacyigelinta iyo xagga baraarujinta marka waxa ay labada urur maanta u kulmeen maalmahan aanu wadnay oo kulamo dhowr ah aan ka qaadanay sidii xaaladan coronavirus ama xanuunkan dunida aafiya runtii si wada jir aan iska kaashan lahayn labada urur sidaan la socono xaaladda adduunka maanta meel halis ku jirta coronavirus ku farabaas ku haya dunidii ta dhaxday ama dunida horumartay ee adeegyada aanu doonin jirnaa caafimaadka runtii ba maanta xaaladda ay ku jiraan aynu ka warhaynaa warbaahinta soo gudbinaysa sidoo kale xaaladda mandaqada oo uu ku soo fidayo marka laga hadlayo qaaradda aynu ku jirno ee Afrika runtii ay iyadana maanta la dareemi karaya walaaca laga qabo dalalka Afrika xaaladda iyo faafitaanka cudurkaas sida uu socdo waxa kale oo aan la hilmaami karin runtii mandaqada aynu ku noolnahay bariga Afrika gaar ahaan dalalka aynu jaarka nahay oo ah dalal runtii saameyn badan inagu leh haddii aanu noqoto arrimaha caafimaadka arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha runtii oo in ay iskaashanaan u baahan runtii isna faraha uu ku hayo imika xanuunkaas waxaan la socnaa warbaahinta aad ka arkayseen mas'uuliyiinta dalalkaas runtii oo tallaabooyin u qalma oo lagaga hortagay dhibaatada xanuunkaas runtii bulshooyinkooda runtii u sameeyo ku talaabsaday ruuxaan haddii noqoto ururkii saxaafadda iyo haddii noqoto ururkii dhaqaatiirta runtii waa soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa fariimaha iyo macluumaadka ay bulshada u gudbinayaan runtii xukuumaddu ku taliso mar walba waxaanu doonayaa inuu hormuud ka noqono oo aanu anagu majaraha u qabano runtii sidii aanu bulshada u gaarsiin lahayn fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta qabta lama hayo oo la xaqiijiyay waxa kaloo socda Somaliland in meelaha laga soo galo oo tiradu tahay 12 goobood oo ah dhulka oo ah madaarada iyo tikada berbera lagu sameeyo maalin kasta in dadka la eego tirada dadka soo galeysa tiyo la raaciyo tixraaca ururka qaramada midoobay qaabilsan caafimaadka ama WHO ay u sameysay in la raaco habkaasi waxa weeye hab lagu eegiyo dadka soo degaya dalka inay yihiin runtii kuwo looga shakiyo kala xanuunka iyo inaan ahayn sidoo ognay markaa Somaliland heerka diyaar garowga markaan eegino waxa jira dunida waxay leedahay in diyaarsato qorshe diyaar garow oo laga midaysan yahay qorshaha diyaar garowga ee laga midaysan yahay waxa weeye qorshe dalku ururadiisa bulshada wasaaraddiisa horumarinta caafimaadka iyo laami kale xukuumaddu ay u wada fariisanayaan sidii loo diyaarin lahaa tixraac dhameystiran oo qaranka u diyaarinaya inuu ka hortago cudurka COVID-19 ilaa hadda haddaynu eegno waxyaabaha ugu badan ee la tabayo waxa ka mid ah bulshadu xogta hayso waayo hadda bulshada xogta hayso waxa weeye xog aad u yar taasoo aad u kordhin karta propagandada ama cudurkan waxyaabo badan baa la isla dhex maraya oo beena waxyaabaha waxay badan karaan haddii aan bulshadu helin xog joogta ay ku helayso cid loo xil saaray in bulshada warkan siiso marka ilaa hadda waxaynu hambalyeynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii aad iyo aad uga hawl gashay uguna dadaashay inay dadaal ku samayso inay screen garayso ama eegto dadka soo degaya dalka wasaaraddu diyaarisay goobihii lagu karantiimeyn lahaa marka la arko dadka waxa kaloo inoo diyaara oo la tababaray shaqaalihii ama xuduudii caafimaad oo lagu tababaray sidii xanuunkan loola tacaali lahaa waxa kaloo la codsaday in dhammaan heegan galaan shaqaalaha caafimaadka dalku si ay uga jawaabaan xaaladan marka waxaan oran lahaa in taana la yareeyo iyo barnaamijyada baxaya waxa jira barnaamijyo badan oo minka baxaya xagga saxaafadda ama xagga social media barnaamijyadaasi waxa loo baahan yahay in la sii eego tayada barnaamijka ay sii eegaan ururada saxaafadda iyo ururka dhaqaatiirta Somaliland Aidarus Maxamed Caynaan Gobjoog Hargeysa